السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي كسو دبادة برنامج كيني تحانا إنوها وأنيقو عبد الرشيد عبلابي قيبتي لباد وحي إنو جوكتي أناقو سلسو قرني قيباها كالدواني مشكلاتك إيا أناقو صوتحني تلابوين كاللايا باهايا مركز مشكلة لكولانتو وحي إنو جوكتي تلاباد سدحاد هاتنا كسو دبادة تلاباد أفر وإناد بارتا تاريخ المشكلة ده taariikhdu waa arrimaha ugu muhiimsan ee lagaaga baahan yahay inaad daraasayso kana qiyaas qaadato marka aad rabto inaad qadiid xalka gaadho. tusaale ahaan waxay dhibi dhex martay nin iyo haweenkiisa waxaana kala gaadhay halgaad iyo hadal xun adna waxaad isu diyaarisay inaad soo afjarto khilaafkan ku habsaday qoyska muslimka ah. haddaba si aad wax badan ugu fahanto dhacdadan waa inaad raadraac kusoo samaysaa heerarkii uu khilaafkoodii soo maray iyo muddada uu soo qaatay. xog raadintaas iyo baadidoonka taariikheed wuxuu kuu sahlayaa inaad hesho macluumaad qaali ah oo kaa caawiya xal u helista dhibtan. aqrinta aad aqriday taariikhda ay isla soo mareen labadan lamaane waxay kuu bidhaaminaysaa in ka badan 40% si aad xal u gaadho, waxayna goolxaar u noqonaysaa go'aanka aad qaadan doonto. sidoo kale waxaad heli doontaa meesha ay dhibtu ka jirto, waxa qaldamay iyo siday u qaldameen. 5 waa inaad baartaa baaxadda mushkiladda. waxaa la arkaa in dhibaatooyinku isku baaxad ahayn ama cidda ay qusayso kala badan tahay. waxaa sinnayn dhibta taabata hal qof iyo ta taabata ummad fara badan. hadba inta ay la eg tahay baaxadda mushkiladda ayaa lagu jaangoonayaa xalka lagu dayayo. sidoo kale hadday mushkiladda baaxadeeda ballaadhato waxaa la siyaadiyaa waqtiga la gelinayo iyo wasaa'isha loo isticmaalayo furdaaminteeda. haddaba hadday dhacdo inaan mushkilad sawir fiican laga qaadan, waxaa hubaala in xalka lagu dayayana aanu noqon mid munaasab ah. sidaa daraaddeed waa in la qiimeeyaa mushkiladda lana fahmaa baaxadeeda. 6 waa inaad baartaa sababaha keenay mushkiladda. inta badan mushkiladuhu waxay leeyihiin asbaab dhalisay oo keentay mushkiladan. haddaba marka la rabo in mushkilad la furdaamiyo waa in si fiican loo fahmaa sababkii keenay. garashada aad garatay sababka keenay dhibkan waxay si fiican kaaga caawin doontaa marka aad rabto inaad xalka guda gasho. haddaba hadday dhacdo inaan si dhaba loo garan sababka, waxaa aad u adkaanaya in lagu guuleysto xalka munaasabka ah. 7 waa inaad go'doomisaa mushkiladda. marka mushkiladda dhacdo waxaa loo baahan yahay in la xakameeyo lana go'doomiyo si aanu u fidin uguna tallaabin meelo kale. taasi waa ta keenta in marka qofka uu ku dhaco xanuunada qaar ka mid ah in la karantiimeeyo lagana fogeeyo bulshada inteeda kale, iyadoo loo dan leeyahay in xanuunkaasi u baahin ama gaadhin dadka caafimaadka qaba. taa macnaheedu waa in la hakiyo mushkiladda laguna idhiiriyo dhabada iyo dariiqada loona diido inay fido. 8 waa inaad qaybidaa mushkiladda. waxaa dhacda marar badan in mushkiladu isdul fuulaan una ekeedaan inay yihiin mushkilad qura, laakiinse marka aad si dhaba u eegto waxaa suuroodo inay yihiin mashaakil isu tagay oo u baahan in la kala jajabiyo, una baahan in marba mid la xaliyo loona kala hormariyo sida xalkooda u kala dhow yahay ama uu kala muhiimsan yahay. amaba waxay noqon karaan hal mushkilo oo u fiday dhinacyo badan una baahan in qayb kasta sideeda loo xaliyo. 9 waa inaadan buunbuunin mushkiladda. waxaa dhacda waqtiyo badan in la buunbuuniyo mashaakil lagana sareysiiyo heerkeeda. taasi waxay keentaa wax sahlan oo si fudud looga tallaabi karo laga dhigo qar iyo buur aan la dhaafi karin. sidaa daraaddeed waa inaan la buunbuunin mushkiladda lana dhaafsin xadkeeda. 10 waa inaad abaartaa mushkiladda. fulinimadu way qaybo badan tahay. dadka qaarna waxay ku keentaa inay karti u waayaan inay wajahaan mushkiladda ama ay abaaraan arrimaha soo food saaraya ee hortooda ka muuqda. haddaba hadday dhacdo in laga wareego mushkiladda waxay keentaa inay gaadho heer aan waxba laga qaban karin ama uu liito xaalkeeda oo uu fogaado. sidaa daraaddeed waa in mushkiladda la wajahaa loona abaaraa si ay geesinimo ku dheehan tahay. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa axbaabii qaybta saddexaad ee barnaamijkeena. inta aan ku kulmayno qaybta xigta waa anigoo cabdirashiid ceeblaabe oo idin leh sidaa iyo ammaano Allah.